wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa waxa ay maanta shaacisay xilliga rasmiga ah ee la qaban doono imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland ee dugsiyada hoose dhexe iyo waliba dugsiyada sare ee afraada. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abokor oo si wada jira warbaahinta kula hadlay gudaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxa ay shaaciyeen xilliga rasmiga ah ee la qabanayo imtixaanaadkaasi. 15 June sanadkan imika aynu ku jiro ayaa imtixaanadii shahaadiga ahaa ee dugsiyada hoose dhexe ama fasalka 8aad iyo fasalka afraad ee secondary-ga ama dugsiyada sare ay bilaabmayaan 15 bisha August ee soo socota waxaa la shaacin doonaa ama lagu dhawaaqi doonaa imtixaanada natiijadooda shahaadadaha dugsiyada sare fasalka afraad imtixaankooda natiijadii waxay noqdeen iyo fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe ah sanadka cusub ee waxbarashada wuxuu bilaabmayaa bisha August 10keeda bilowga termka labaad wuxuu noqon doonaa bisha February 1deeda waa 2020 fasaxyada xagaagu waa isku mid sanadkan iyo kii horeba ka dambada isku mid bay noqonayaan waxa weeyaan 13 June ilaa 9 August ayaa fasaxa xagaaga ee sanadkan iyo ka sanadka dambaba ay noqon doonaan goobaha waxbarashada ee leh duruufaha gaarka ah sida goobaha waxbarashada ee xeebaha goobaha ay soo wajahaan xaaladaha degdega ah sida colaadaha duufaanada abaaraha iyo xanuunada faafa iyaga waxa loo sameeyaa jadwal gooni ah oo ay ku fuliyaan waqti dugsiyeedka ama xilliga dugsiyada la dhiganayo academic calendarka waxa afka qalaad lagu yiraahdo ama xilliga waxbarashada sanadka ama kaltirsiga waxbarashada sanadka marka sanadkii 2018 oo imika iyo sanadka 2019 gabagabah dhamaadkii sanadkan iyo sanadka cusub ee sanad dugsiyeedka cusub ee 2019 iyo 2020 isku noqonaya waqtigu bilaabmayo waqtigu dhamaanayo faahfaahintiisa iyo imtixaankiisa intaas runtii wasiirku inoo faahfaahin doonaa runtiina qorshaha waxbarashadu wuxuu ku socdaa nidaam waafaqsan shuruucda qaranka iyo xeerarka waxbarashada iyo xeer nidaamiyaasha kale wasaaraddu sameysay. Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.